xirfadda wuxuu ka soo bilaabay meesha ugu hooseyso oo qofka micnaha ku soo dhismi karo geedu website uu qori jiray uu soo jabhadeeyay ilaa heer uu soo gaaray raadiyo looga waco raadiyo weynaa barkulan oo isku tiim ah ka wada noqon markii dambe marka nin taariikh dheer la waayo oo saxaafadda dhan walba soo shaqeeyay markii koowaad ee maxaa ku raad naga tagto inay noqon doonto laakiinse markii koowaad ee aad soo laaban doonin inaysan noqon doonin inaad mar kale artiga ka soo muuqatona way dhici kartaa waa laga yaabaa haddii kalena waa saaxiib inaga mid oo aan naga fogeyn bini aadam oo dhan aan laga waaynayo isku dhac ilmaha ayaa naaska hooyadu qaniina soo garan marka waxaan la shaqo taalo isku dhac laga waaymayo laakiin ما أركين سوق قف قطعية مثلا سوق حلينا يو نبضون وحكي نحكي جنوية سوق قف قطعية ولا شيء جنوي وخاتي اللي جت تعيي هاي أنت هم كتشوفي معك رنتك الشيء ما أماني ما أنا بعيد هذا ما بتاع قف كمركي شغلي وحنا مركو رنتي عن سفر السلام الله يا والكي صاحبكي ولي وعداء إبراهيم جدو عوالي هذا سير أكيد سيم إبراهيم كلية باحة وريه شيء عيارة إبراهيم بوس والبو أرتين حتى حاسس تفرق مركب كمبيوتر حمالان إنه يحكي لي جمال جدو كمبيوتر هذا كاره إبراهيم كلية باحة مركب حالة إنجليز كفرس ميقان باحة توصل مركب إبراهيم مركب وريه مقيه وربو حينيو أما برامج مقيه أما الريبوت بناك حتى حاسس توحى كمل إبراهيم marka magaalada warar ka dhacayaan warar weyn ay jiraan ama wasiir imaanaya ama madaxweyne imaanaya ama dad muhiim ah wadanka imaanaya Kenya Soomaaliya ka socda codku soo duubi jiray codku soo diri jiray kadib halkaan la muuqaalka laga saari jiray kadib wararka lagu qaadan jiray sidana waxyaalaha ku xasuusto waxa kamid ah qaybaha salaada intuu barnaamij soo gelin kor waxa ka soo ku jira arkaysa maruu ka baxan misaa ku sii geliyay hadana ma sha Allah marka waxyaalaha taqaanay يا ومغرب كي عشاء ها مغرب عشاء عصر كي انت marka waxyaalaha aan ugu bogay bay kamid tahay deganaanta iyo mataqaanaa dabeecad wanaagsan isaga iyo daahir marka qoys wanaagsan oo badda isku soo gaartay masuudiga weynaa Ibrahim Gedo hada taas ka jawaab malaha dadba aad ii eegaya marka ma ku fogaanayo marka laakiin nin Soomaali leh oo dabcan qoys hibooliyaal ah ka soo jeedo oo runtii xurmo badan oo macallimiin ah oo fan leh bulshadu markii ay dhan walba dhankii fankay dhankii diinta dhankii magaranaysaa arrimaha kale waxaad moodaa marka niyo The other thing on Gedo ku xasuusanayo waxa waaye maalin ay asagoo computer-ka fadho computer-ka dhan way mashquulsanayeen so waan u tagay waxaan ku iri Gedo hadii aad ka dhamaysato ma iibanaysid meeshan muxuu ka dhamaysanaya computer-ka shaqada marka saas inuu ii war soo fariiso igu dhahay magaaladu baad ka bedelatay mooyina waa shaqada halkaaga maad ka sii wadan doontaa khayr badan aan ku rajeynaa insha Allah aad badan muxuu ahaa halka wariye oo warshkaasoo wariyaha inta joogan markuu rabo inuu wax u qabato mise waxa uu sameeyo ku imaanaya ku dhaha Cabdiraxmaan Cade kala waxay qabo farxada ii tahay ugu mahad celinaa shaqaalaha dhammaan dad aan sida soo wada halganay u badan yihiin teamkan isla bilawnad farxiyaha ka joogta u maleynaya iyo England hadii aan qaldaneen sidoo kale insaaro gurdu ka tagtay dadka isla bilawnay ku jirtay dadka hadda joogan sheegaya ka shaqeeya marka horta waa iska amaanteen inkastoo qofku markuu gurjo wax badan laga sheegi karin laakiin waxaan qiyaasayaa waxa alxamdulillah 3 sano ku dhawaad meeshan dhowr 30 qof waa iska shaqeynaa malna inta tagtay si isba bedelka iyo dhowr maamul iska la bedelay horta alxamdulillah qof isku dhacna ma jirin